وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلم ورفع قدر العلم وعظم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaynu runtii halkan aynu isugu nimi xaflad mubaarak oo barakaysan oo isugu jirta xaflatu takharuj wa khitaam al-aam ad-darasi sanadkii ina soo dhaafay ahaa maxaan ku dhahday sanad dugsiyadkii 2011 ilaa 2012 ayaynu soo khatiminay waxaan noo raacay in ardaydu takharuj ay waxa way qaarkood sameynayaan oo ay ka qalin jibinayaan xafladan maanta aynu joogno bisha barakaysan ee Ramadaan ay ku beegan tahay 18 sanadka 1430 bisha maxaan ku dhahday sanadka maadigna uu yahay milaadigu uu yahay 2012 bishii maxaan ku dhahday sideedaad lixdeed ee maanta tahay marka barnaamijku wuxuu inoo noqon doonaa sidaas runtii marka iminka waxaynu ku bilaaban doonaa kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in lagu bilaabo isaga waxa way mudan inay mar kasta waxa way ku bilowno hadda ya Tariq Abdulrazaq Abdullah Muhammad oo kamid ah ardayda macadka ka qalin jibinaysa isaguna ayaa inoo akhri doona quraanka لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك وينوغي حيقي دونا بالمديرك معك ويساقنا فافهين دونا حانكو لهذا معك إياه ولهيسا إياه وربحين كوابان ومعك كسابسا waayo qof waliba wuxuu isweydiinaya horta markii hore macadku
bal halkeebuu ka joogaa macaahida ama halkeebuu warbixintiisa ayaa qof walba isweydiinaya waxaan hadda ku soo dhaweynaynaa mudiyadka macallin ustaad xuseen macallin ibraahim. furitaanka macadku waxaa la furay 2006 ahdaafta loo furay macadku waa ka uu guto risaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam macadku uu la dagaalamo jahliga oo aqoonta diineedna uu guto soo saarista inuu macadka soo saaro daaciyaad gabdha iyo rag iyo dumarba isku jira oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala intay bartaan dadka bara. waxaa ka qalinjibiyey 6 dafcadood oo dafcadan maanta ugu dambayso dafcaddii ugu horreysay ilaa maanta dafcaddii 6aad aynu u fadhino dafcaadka ka qalinjibiyey macadka ay u gudbaan macadka alfurqaan intaasoo ay ka kooban yihiin cadadkiisa haddaan u noqdo cadadkii ardayda dhigata macadka iyo furuucdiisaba waxay gaaraysaa cadadkoodu 1226 arday. macadka isagoo ay dhiseen dad samafalayaal ah waxaana ka mid ah baahiyaha uu leeyahay xagga dhaqaalo iyo xagga qalabaynba. baahihiisa waxaa ka mid ah ikhwaani fillah meel intaasoo arday ay dhiganayso gelin hore gelin dambe habeenkii wuxuu u baahan yahay qalabayn dheeraada oo hadda miisaskiisii iyo kuraastiisaba kuma filna dhismihiisa kuma filna. ardaydu usuusha way ku yar tahay dhismaha meesha way kooban tahay dadka meesha imanaya aad bay u yar tahay. insha allah haddii la yidhaahdo inaasaan kusoo koobayaa waxaan u mahad celinayaa walaalaha muslimiinta ah ee ka soo qayb galay xafladan oo iskugu jira culummada iyo saxaafadda iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda. waxaan oranayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaad idinka siiyo bisha ramadaan ee barakaysan waqtiga juhdiga aad bixiseen aadna siiseen. hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. runtii uu meel kasta oo macadka danihiisa uu ka hadlay dhinac walba dadka ka soo baxay iyo maxaan ku kuwa min qalin jabinaya oo iyagu tiradooda ah 136 arday ayaa maanta runtii halkan ka qalin jabinaya oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba. marka xafladu runtii waxay ku soo beegantay bisha ramadaan ee barakaysan oo waxa weeye waa la sooman yahay sidaa daraaddeed waa iska soo maxaan ku dhahdaay waa ijaasinayna ama soo koobaynaa si aan maxaan ku dhahdaay aynu u gaadhno maqsuudkeenna iyo danta aynu leenahay. intaa waana layna danka ka soo gudubno waxaynu igu xidhi doonaa macallimiintii dadka ku soo tabacayay inaynu bal macallinna aynu ku soo dhaweyno si isna ra'yigiisa uga dhiibto xafladan maanta aynu halkan ku hayno. maxaan ku dhahdaay dee dadkana iminka halkan fadhiya ama ardayda bilaash iskama iman waxaa ku soo tabacay macallimiin oo maxaan ku dhahdaay waqtigooda iyo maxaan ku soo bixiyey iyo cilmigoodiiba. bal haddaynu ku soo dhaweyno macallimiintana dhinacooda waxaan hadda halkan ugu yeedhayaa macallim jaamic yaasiin. آمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. waxaan u malaynayaa khudbad dheer looma baahna kelimad yar waxaynu insha allahu tacaala biidni illah aynu fadhinaa xafladii qalin jabinta machadu khadiija bintu khuwaylid alibtidaa'i walicdaadi. machadku waa machad hoose dhexe ardayduna markay ka qalin jabiyaan waxay qaataan shahaado dugsi dhexe oo ay ku tagaan macaahidda sarsare meeshay doonaan ha ahaatee. taqdiirka machadku horta waa intaa. kelimadaydu kolley haddii la igu yeedhay magaca macallimiin badan oo iga xogogaalsan iga aqoon badan iga aftaansanna ay joogaan bal wixii gaabis ah haddaan oofin waayo xaqooda raalli baa layga ahaanayaa macallimiinta aan afkooda ku hadlayo insha allahu tacaala. waxaan odhanayaa kelimad gaaban oo aan odhanayo waalidiinta iyo kelimad kaloo aan odhanayo ardayda.
iyo kelimad kaloo dhammaanteenba kasoo qaybgalayaasha xafladda aan leeyahay. waalidiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka abaalmariyo dadaalka aad ku dadaasheen inaad awlaadii iyo carruurtii rag iyo dumarba dadkii aynu mas-uulka ka ahayno ilaahay subxaanahu watacaala mas-uuliyaddiisa u ina saaray inaynu ku dadaalno inaynu ku tarbiyayno manhaj sax ah, diin, kitaab ilaahay iyo sunnadii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam. waana waajibka ina ka saaran inaynu ku tarbiyayno awlaadeenna rag iyo dumarba inaynu xaq u siino. waa xaq ay inoo ku leeyihiin xaqu tacliim. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara. marka waa xaq ay inoo ku leeyihiin dadka aynu mas-uulka ka nahay inaynu waxbarno horta. weliba gaar ahaanta waxaa jiri jirtay dumarkoo beryihii hore ama mujtamacaad badan aan ahamiyad weyn la siin, muhiimad badan, mujtamacaad badan oo adduunka ku nool ayna ka mid ahaayeen. beryahan dambe waxay isbedeleen, laga yaabo mujtamaceena Soomaaliyeed inuu ka mid ahaa inaanay hablaha siin xaqooda waxbarasho in badan oo ka mid ah ama waqtiyada ka mid ah aanay siin. marka inaynu hablaheenni macahad intan leegu dhisno, macallimiin intan leegna u diyaarino oo ay wiilashii siday wax u baranayeen iyaguna diintii u bartaan oo kitaabkii iyo sunnada ay u bartaan. gabdhuhu beriga hore waxaa la yidhi yaasiinba ma dhaafi jirin Soomaalida, yaasiinka ma dhaafi jireen, laakiin gabdhaha haddeen culimo ah oo dadkii diinta u sheegay aynu soo saarno waa muhiimad weyn. waalidiintana waxaan leenahay baaraka allahu fiikum, ilaahay subxaana watacaala ha idinla garab qabto, dhammaanteen hayna la garab qabto. waxaan kaloo ku boorinayaa waalidiinta inay ku dhiirigeliyaan dadka ay mas-uulka ka yihiin, wiilal iyo gabdhaba, inay sii wataan waxbarashadooda iyo aqoontooda. haddeer macahadku waa macahad dhexe ah oo shahaado dugsi dhexuu bixinayaae ilaa tii dugsiga sare iyo tii jaamacadda iyo ilaa meel kasii sarraysaba waa inay higsadaan. in la yidhaahdo maahan xoogaa bal gabdhuhu maxaa idhahdaaye waqtiga galabtii iyo macadkaa yar aadeen. gabdhahana waxaan leeyahay waa idiin soo socdaa iyo wiilashaba dhammaane. gabdhaha waxaan ugu celcelinayaa waayo xilliga ugu badan ee la dhigto macadka gabdhaha dhigta. wiilashu hal xilli bay soo galaan, laakiin gabdhuhu 2 xilli xalaqado dheeraada waxaa ugu badan oo macadka dhigta waa dumar. sidaa daraaddeed baan ugu celcelinaya. marka inay ku booriyaan waalidiintu dadkay mas-uulka ka yihiin waxbarashada waan ku dhiirigelinaya. waxaan kaloo ku dhiirigelinayaa inay garab istaagaan macallimiinta oo ay ku garab istaagaan sidii dadka wax loo bari lahaa oo mujtamaceenna aynu wax ugu qaban lahayn. laakiin haddaad tidhahdid wallahi hooyo fiican baan ahay ama aabbe fiican oo intaad ardaygii soo kaxay sidoo macadka keentid aabbanaha kala baxdid, sanadkaasoo dhan ardaydii iyo macallimiintii isla soo socdaan oo hadday isla fiicnaadaan iyo haddii kale iyo aan warba laga hayn, taasi waxaan u malaynayaa ma fiicna, muhimna ma aha. dad qaabkaasna dad looma soo saari karo. waa inaynu iska kaashanaa macallimiin iyo waalidiin. marka waalidiintu inay garab istaagaan macallimiinta. ardayguna 2 garab buu leeyahay, guriga iyo waalidku inay maamulaan, dhiirigeliyaan, ay la qabtaan, iyo macallimiinta. marka haddaad garab ka goysid oo xaggii guriga aan waxba talooyin, dhiirigelin, la socod, durustiisa lala fiiriyo, meeshuu ka jaban yahay, meesha wax ka liitaan, meeshuu ku sarreeyo, haddeen xaggii guriga lagala socon macallimiintii waan halkan ay ka wadaan, waxaan u malaynayaa taasina dee shimbirku 2 garab buu ku duulaya, mid haddii laga gooyo ma wada duuli karaan u malaynaya. marka waa sidaas, waa inay ku dadaalaan waalidiintu inay garab istaagaan macallimiinta iyo machadka oo la socdaan oo kala qayb galaan camaliyadda kor u qaadidda ardayda. waxaan ardayda leedahay iyaguna waxaad hadda joogtaan bilowgii waxbarashada, qalin jabin ha ahaato, laakiin waa marxalo ka mid ah marxaladaha waxbarasho, sallaan ka mid ah sallaamada waxbarasho weeyaan oo hadda machadkii dhexaad ka qalin jabinaysaan. yaana idinla hawl yaraanin horta. ka qalin jabinta machadkii dhexe waa ka gudub marxalo aad ka gudbaysid, laakiin bilowgii kamaadan zuulin. inaad sii wadid, machadkii sare usii gudubtid, jaamacaddii usii gudubtid. gabdhuhu laakiin haddeer waxaa faafta oo aad u fara badan. dee inantu markay guursato waxbarashada way iska daysaayo meelaha iyo maxaa dhahdaay carruurtii reerka iskaga mashquulsaayo. laakiin sidaa ma aha, ka daayaan idin leeyahay, ka daaya. waxaa jirtay beri dhexdaasaan jaamacad diga jirnay ba waxaa jaamacadda nala fasal ahayd inan 9 carruura leh. aroortiina way soo kalaadaa, xiisadahay fadhiisataa, xiisadahay ardayda la dhigataa, 9 carruurana guriga kaga timaadaa. marka horta haddii reer la yeesho hamoodin inay waxbarashada la iska daayo, dhib ma leh, marba sidii kuu suurta gasha. maxaa diidaya haddeer? ma wax dhibaataaba ku jira inantu hadday macadkeeda iska dhigato, macadka sare, jaamacadda dhigato, haddii wax yimaadaan dee lala wadi kari waayo, dee inta hawshaasi taagan tahay unbaa la yaraha kaniyo hadhowna halkii baa laga sii wadaya.
marniga ku jira مثلا hooyadii ilmaha ku soo kordhay way umushay hawlaha ku yimid tayntaan bay joogaysaa hooyooyinka suuqlayda ma meelan arag afartanka iyo bay ka baxaan oo hadhowna suuqeeda meheratan ka sii wadaay idinkuna afartanka ka baxo guriga joog hadhowna jaamacadda iyo macalkiisa leh halkii ka sii wadaan idin leeyahay marka waxbarashada inaad wadaan hor oo aydan ka daalin madaalayaal inaad noqotaan waa idinku boorinayo waxaan kaloo idinku boorinaya inaad ku dhaqantaan kuna camal fashaan waxaad barateen waxay noogu xigaya haddaba bal hadda nashaadaadkii ardayda iyo bal ardaydu waxaynay maanta ay soo bandhigaan waxay baranayeen qayb ka mid ah inay soo bandhigaan si meesha aanay nooga aynaan dee ardaydii meesha uga saarin maxaan ku dhahdaa in ardayda qayb ka midina ay bal wixii ay dhiganayeen bal wax ka miduna inaga xasuusiyaan arday ka mid ah ardayda iyaguna qalinjibinaya oo la yidhaahdo aadam xasan faarax. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فهذه كلمات يسيرة ووقفات قصيرة حول فضل العلم وأهميته وقد ذكر الله في القرآن الكريم أهمية العلم وشرف حمالته فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ففي هذه الآية الكريمة دليل على شرف أهل العلم وعلو منزلتهم حيث أعطاهم درجات ليست لغيرهم من المؤمنين وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واستشهد الله بأهل العلم دون غيرهم على أجل مشهود به وهو التوحيد فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وأمر الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم دون غيره من أمور الدنيا فقال وقل رب زدني علما وكذلك فرض المصطفى صلى الله عليه وسلم طلب العلم فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وخير الدنيا والآخرة معلق بالفقه في الدين وهذا هو العلم. قال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه والعلم أيها الإخوة الكرام خير ما بذلت فيه الأوقات والأعمار وأنفس ما أنفقت فيه الأموال والجهود. وأخيرا قال الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. وقال آخر من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة كيف ترى هذه الحفلة المباركة لا سيما وقت الزمن في شهر رمضان الكريم؟ أولا نحمد الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك أرى هذه الحفلة حفل مبارك جميل ورائع وتسر ويسر الناظرين وهو حفل شارك فيه خيار مجتمع فضلائهم. ثانيا أقدم جزيل الشكر إلى أساتذة المعهد والمعلمين الذين بذلوا قصارى جهدهم في سبيل رفع جهل عنا. وأقدم الشكر أيضا إلى علماء الدعوة الذين شاركوا معنا في هذه الحفل. وكذلك أقدم الشكر والتقدير إلى جميع من شارك معنا من الآباء والأمهات والشيوخ ونقول لهم مرحبا بكم. أختي العزيزة ماذا تعرفين عن أهمية العلم؟ لا شك أن للعلم أهمية عظيمة ومنزلة عالية ودرجة رفيعة. وهل لديك أدلة من القرآن تدل على ذلك؟ نعم عندي أدلة كثيرة منها قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهل لديك أحاديث نبوية تدل على ذلك؟ نعم عندي أحاديث. نعم عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل بإمكانك أن تلقي على أسماعنا أبياتا من الشعر في بيان أهمية العلم؟ نعم عندي أبيات قالها الإمام الشافعي تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا التفت إليه الجحافل ولا ترى
الأرض من عيش بدون ولا يكن نصيبك إرث قدمته الأوامل. وختاما أشكرك أختي العزيزة كما أشكر جميع المشاركين، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jeediyaan ardaydaas xiwaarka carabiga wali hablihii baan waxa weeye qaybta daalibaadka ama maxaan ku dhahay banaadka ayaan ku dhex jiraa waxa haddana aynu halkan ku soo dhaweyn doonaa laba arday iyaguna xagga xifdul matuunka iyaguna maxaan ku dhahdaa inoo soo jeediya waa laba arday laba daalibaad weeye oo ay kala ah صابرين سليمان أحمد وروضة محمد ومدنا أخي دونتو تحفظ الأطفال مدنا إنه أخي دونتو محمد كل هذا منظومة البيغونية إنه أخي دونتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام ابن رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي المرسل بدري من أحسن الحديث أبدأ وكل واحد منها وحدا أولها الصحيح هو متصل إسناده ولا أي يروي عن ضابط عن مثله معتبر كتابه ونقله والحسن المعروف قضت رجاله لك الصحيح اشترت وكلما حفظت بالحسن وقصوره ضيف فما كثر وما أضيف للنبي المرفوع لتابع ومقطوع شام متصل شامل هاويه حتى مصطفى ولم يبين ومبدي سمع قول أو ينتسب اسناده المصطفى المتصل مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أمر الله أنبان الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا ولا تنقصنا. الحمد لله على كل حال. ربنا واغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا. أما بعد، قال سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى للنون أن تسكني ولتنويني أربع أحكامي فقلت بيني فالأول إظهار قبل الأحروف للحق ستة فتعرفي حمد فالهاء ثم عين الحاء ثم الثاني ثم الغين الخاء وثاني إدغامه بستة نتاع يرملون عندهم فثبتا لكنها قسمان قسم يسقمان في بغنة بين علما إلا إذا كان بكلمة تلا ثم كثنية ثم سوى تلا وثاني إدغامه بغنة بغير غنة في اللام وراء ثم اعتذرن وثالث الإطلاق عند الباء مما بغنة مع الإخفاء ورابع الإخفاء عند القدر من الحروف الواجب للقدر بخمسة من بعد 10 رمسها في كلم هذا البيت قد أمسها استاذنا كم جاء تشق السماء دم دايما تجري سوقات عظيمة. السلام عليكم. laba daalibaad oo kale oo iyaguna ardayda ka mid ah maanta qalin jabinaysa oo iyaguna inoo akhriya xagga shicirka ama gabayada mid waxay akhriyi doontaa haddii la haydmo manduumatul ibn isxaaq midna waxay inoo akhrin doontaa haddii la haydmo maxaan ku dhahdaa gabay imaamu shaafici ama shicir uu leeyahay imaamu shaafici waa u yeedhaya hadda zaynab cali axmed iyo مريم محمود علي. في منظومته أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاء ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبغى ذكره لك إن ذهبت والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ألست وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت
يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو غذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها قضاء تستر بالسخاء فكل عيب يقضيه كما قيل السخاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا حسن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. هذا وحين كسر دوين دونا حق علماء مقالة وكوها الله يوشيخ محمد حليكة فليتفضل مشكورا. هو كبر وقوبيسا وكتغوض إلهي فوائد عظيمة لغا هلا وانا دردارنكي أمديهنا كهرهي إنقبا لينو دردارمي بشان رمضان إن كتشرنا خاصة وإلهي أمد كفرت هيلي وحكو ختمي الله إن لغا يابو حيابها عبسدة إلهي لكو هلو يتغوض القبطانا إن بشان رمضان كميتها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. marka qof walba ina kamida meel walba aad joogto hadii aad bulshada dhex joogtid iyo hadii aad kaliga tahay iyo hadii aqalkaaga joogto ama meheradaada ama suuqa qof walba ilaahay ka cabso cabsida ilaahay aad ka cabsanayso inta ay la eg tahay ayaa tadayunkaaguna la eg yahay ama diin ku dhaqankaagu uu la eg yahay sida awgeed baa Abdullah ibn Mas'ud wuxuu ku fasiraya Allah ka cabsi wuxuu oran jiray وقف إلهي سبحانه وتعالى إنه شكريه وأنه كعاسن إنه إلهي أطيعه وأنه كعاسن نعمة الله إنه سبحانه وتعالى وكشكريه إن محانكر الله هذا يقول له حصوصته وأنه إلاوين علينا وحكدري شيء رضي الله عنه دينتي كتاب في الشريعة إنه قدغم آخرنا أديار كروه يقف حصته إنه كمل وعلى الربا إلهي وكعبه سبحانه وتعالى قضب كاللبات إنه حدوثنا إنه عوي نعمة إلهي من السيئي قفل وإنه كملا وعوقي إلهي إنه نعمي نعمة قفل بينه حصوصته وشيء واجب إلهي وحلي وما بكم من نعمة فمن الله وحا هيستان ونعمة إلهي حقي بيدين كتن عدكلا وحا إذن سيسيمتر نبتقل يدا عافماتك عبادة محانك ولا تدينك خيرك هناك هذان أمني يوحى سجين ما أنت الكسر الله صار الله فرد لازم أنا يمادي أقوانت إن كلا برتي معلمين تدالين جزاهم الله خيرا أرضي تدال شيء وارد تدالي كان إسكاي سكو قفلان سدا إن كلا ما هي نعمة إلهي غفر وحسوسات إلهي وحليه سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إلهي وحدش إن كبديي أو إذن كبوحيي نعموين كيس من ظاهر ومغانيس dadkii iyo dunyadii iyo deegaankii iyo guri walba ka muuqanaysa iyo mid khaas oo qof waliba Ilaahay u ogyahay baa subhanahu wa ta'ala dadka hadii nicmada laga mahadnaqo waa la kordhinaya cilmigii baa kordhaya caafimaadkii baa kordhaya dadkii baa kordhaya dhaqaalihii baa kordhaya duruufta wax walba way kordhayaan hadii laga mahadnaqo nicmada Ilaahay la in shakartum la azidannakum waa la kordhinaya fawaa'ida nicmada laga helay kamid هدين لغا ما هاد نغن نمعضو قال لها شيء إلهي بالهلية وإن تشكروا يرضاه لكم إلهي بالهلية دي كان نغني سبحانه وتعالى لكن وحا قرآنكو شيء ذاتك إنت قرانا يسا نمعضو إني نمعتها oo maxaan deeb ku yiraahdaa xusuusanaysa oo ilaahay uga mahad celinaysa waa wax yar oo kooban wa qaliilun min ibadiy shakuur
adoomahayga wax yar baa ilaahay u mahadnaqaya walli adoomahayga in yar baa shukri naqaysa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala rasuulku labada gelinba adkaarta markuu akhrisanayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu oran jiray abuu laka binicmatika calaya waxaan kuu qirayaa ilaahow nicmadaada aniga igu nicmaysa taana waa isxusuusinayna waxaynu kale isxusuusinaynaa fursad qaali ah baynu ku jirnaa oo bishii ramadaana jaaniska aad ka faa'iidaysataan innaga iyo idinkaba iyo qof kastoo xilqaada inuu jaaniskan ka faa'iidaysto waa fursad cadiim ah oo ilaahay agtii ku culus oo qofka maxaan ku dhahay muslimka ilaahay uu siiyey jaaniska in laga faa'iidaysto oo ramadaantan ilaahay uu inoo keenay ayna waafay qaar 3 ka soomeen qaar ilaa 9 ka soomeen oo caawa aakhira jiraan garanaya ilaa 4-5 qof baan garanaya oo ramadaantii la bilaatay oo qaar 3 ka soomeen baan garanaya oo dhintay aakhira jiraan qaar 5 ka soomo aakhira jiraan garanaya bishan hadda aynu joogno qaar 9 intay ka soomeen dhintay baan garanaya aakhira caawa jiraan nafteennana waqtiga ay dhiman doonto ilaahay baa og ma dhamaysan doonaa ramadaan ma ciidi doonaa ma sii noolaan doonaa walcilmu cinda allah geeri baynu ku xukumanay qof walba maalinkaad nooshi habeenkaagu waa habeenkaad nooshi in laga faa'iidaysto cibaadada iyo jaaniska iyo ducada ilaahay habeen walba iyo maalin walba naarta ilaahay dadka waa laga xoreeyaa bisha ramadaan in kuwa aad ka mid noqoto inaad ka faa'iidaysato oo qur'aanka akhrintiisa aad badiso 2 jis maalintii taqriiban aad akhriso ama ka badan marka aad afurada la gaaro aad afurada saarto inaad timirta iyo biyaha markaad ku dhufato dhigato oo gacmaha kor u taagato afkaaga furato ilaahay barido baahana tahay dan adduunyada dan aakhiraad leedahay ilaahay weydiisato waa shay muhiim ah jaaniska in laga faa'iidaysto cibaadada lagu dadaalo taraawiix iyo cishaha iyo qiyaamul layl iyo ducada iyo salaawaadka shanta masaajida lagu ilaaliyo inta ragga ah maxaan ku ma ila dalik in la dadaalo oo bisha ramadaan xadkaaga aad goosato oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wax weyn si dhigato ma ogid inaad ramadaanta dambe gaari doonto ama tan aad dhamaysan doonto 10kii dambena waynu ku soo socdaa oo habeen culus uu ku jiro laylatul qadr la yiraahdo kun habeen ka khayr badan in la dadaalo oo cibaadada lagu dadaalo oo aad loo saciyo oo baryada ilaahay la badiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqada iyo deeqda iyo wax bixinta lagu dadaalo aad baan taa idin xusuusin lahaa iskuuna boornayna waxaan xusuusinaynaa maanta waa dafcadii 6aad ee macadka ka qalin jabinaysa tacliimta iyo cilmiga barashadiisu kuma koobna tan maanta aad ku qalin jabiseen oo kale furayaashii tacliinta baad iminka hesheen oo bilowdeen oo maxaan ku yiraahdaa tacliintiiba hadda idin dhadhantay oo aad fahanteen inaad tacliintii meesha kasii wadaan oo aad dadaashaan dad muslimiin aad tihiin ama gabdho muslimaad aad tihiin oo maxaan ku yiraahdaa idinkoo muslimaada macaahidda laydin keenay iyo madaarista waxaa laydinku talagalay markii laydin keenay inaad ka soo baxdaan idinkoo multazimaad ah muslim multazim ah qofkani waa muslim wax loo baranayo ee loo dadaalayo muxuu yahay waa multazim multazimku waa maxay qof diintiisa ku dhaqmaya oo aqoontii shariicada ay wuxuu bartay ku dhaqmaya waa inay ka muuqataa shariicadu dheefteedu waa inay ka muuqataa xadiiska aad akhrineysana ardayda akhrinayeen waad maqlayseen xadiiska bukhaari man yuridillahu bihi khayran xadiiska biin yufaqihu fi diin ilaahay qofku khayr la doono diintu fahansiiya oo diintii baa qalbigaaga lagu duxinayaa kugu dhaadhacays dul heehaabi maysi oo qof muslima tahay diintii baa qalbigaaga lagu siinaya waa lagu gelinaya laba oran qofkii ilaahay khayr la doono lacag badan baa la siiyaa qofkii ilaahay khayr la doono guryo iyo gawaari waaweyn baa la siiyaa qofkii ilaahay khayr la doono madaxweyne laga dhiga qofkii alla khayr la doono caynkaas la siiya lama oran maxaa la yiri ilaahay qofku khayr la doono diin buu siiyaa hadaa diin ilaahay uu ku siiyo oo diintii aad ku dhaqmayso oo cilmiga iyo shariicada ilaahay ku furo khayr kama maqni ogow xadiidku mafhuum buu leeyahay علمي أصول الفقه مركا لقاها الله مفهوم بوليه ومحوية مفهوم كحديثك لقا فهمي مفهوم كحديثك لقا فهمي وحوية قفك آن إلهي خير لدوني إلهي الدين تواقع قضية سبحانه وتعالى دين تمركا وإنا كم موقتا ودقن كينا كم موقتا ومركا آد موقتي قف إسلام إلهي يقينات ودقن كدين تكام وحال الربا قف كم إذا شنت الصلاة بالدب سفيريو شنتي صلاة sidii loo baahnaa ma u tukata hadaad mintahay masaajida ma ku xidhantahay oo shanta waqti jamaca ma xaadirta hadii ay sax ku noqoto okay saxo adkaarta subax ma akhrisaa adkaarta galabtii ma akhrisaa hadaad fiicantay waa sax
qur-aanka maalintii juz ma akhrisa ugu yaraan 30 cisho mar ma dhamaysa salaada duxada ma tukataa habeenkii wuxuun saacada kamida ilaahay ma isu taagtaa ilaahay baryadii ducadiisa ma badisa wanaaga iyo khayrka ma ka shaqaysa xumaha iyo waxan misor taagta waxa weeyaan isasxinta iyo iswanaajinta qof waliba naftiisa ka bilaabaysa adigu markaa isasxidid oo xiriirka adiga ilaahay idin dhexeeya aad wanaajisid ayaad waxna tari karaysa faaqidu shay la yu'ti qofan waxba haysan waxba bixiyad ku shubi karta waa maya waxa la rabaa si cilmigu u barako oo waqtigu kugu barako oo cimrigu kugu barako oo diintu kugu barako dhaqan bala in dhaweyd waxa badatay in wixii ay iska noqdaan wax la iskala qabsay diintu iska caadi ah harintu ma islaamku waa diin waa manhaj waa dhaqan waa nolol wax lagu noolaado diinta dhaqankeeda qof walba ku daraa ina ku dhaqanto ishood iyo diin ku dhaqanka Allah ka cabsiga cibaadada dadaalka wa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah dadka ma'rufka iyo wanaaga ehelka waa آخرنا خير قبيان بين غني أبو النبي عليه الصلاة والسلام إن لا تدارو ونسبة دارنا قال قوضا بيا مسؤولية وين صار عظيمة إلهي أكتب سبحانه وتعالى مسؤولية وين صار أنت والدك مسؤولية بقار وسيسارنا عبورته لك سارا هذا الكوالدين تمشينا مسؤولية وين صار وعروتنا إنك سارا وحالو قاتان قف وحو دقو وكتبعه وعقله يسجليه oo cimrigiisa u geliyo oo waqtigiisa iyo dadaalkiisa iyo fikirkiisa u geliyo ilaahay diintiisa marka laga yimaado dad baa ugu muhiimsan waxa lagu tabco dad baa ugu muhiimsan awlaada iyo dadku waa nicmooyinka ilaahay kamid ah subhanahu wa ta'ala oo alla uu bixiyo sida awgeed nimcada caruurta laysa siiyay ilaahay ina siiyay waajibaadkooda aan fahanno oo xilkayna ka saaran aan fahanno oo waajibayna ka saaran waxa wax runtii cajaa'ib ah quraanka markaad fiiriso sida waalidka mas'uulka loo saaray oo sunnaha nabiga aad fiiriso wa anfusakum wa ahlikum naar muuminiinta baa loo dhawaa naftiina iyo dadkeena ka badbaadiya wa inaad waxa wacanna bartid waxa hunna ka celis waxa saxiixa targhiib wa tarhiib kusuga rasuulku sallallahu alayhi wasallam ka waran maalinta yawm al-qiyaam waxa la keeni doona laba waalid labadii waalid baa waxa loo xidhi doona labis aad u qurux badan baa loo xidhi doona oo si fiican baa loo sharixi doona markaasay labadii waalid waxa oranayaan bima kusina hada thawb bima kusina maxaa dharkan saan quruxda u badan leh maxaa dharkan noloo ku xidhay maxaa sidan noloogu xaragadan iyo quruxdan maxaa ilaahu saan noloo ku galay maanta oo arintani maxay tahay waxaa loogu jawaabayaa nabiga alayhi salaatu wasalaam ilmihiinni al-quraanka barteen iyo diinta barteen sababtii baa saa laydinku qurxinaya idinka waa chance iyo bishaara cadiima oo waalidka rasuulku u sheegay subhanahu wa ta'ala wa hanuunka iskale adiga laakiin tamartaada intii dadaal ilmaha inaad toosisid oo ku dadaashid oo diintiisa iyo alla ku xidhnaashiisa iyo cibaadadiisa inaan labada waalid inay isla qabtaan waa muhiim labadii waalid haddii midkood gaabiyo ka kale inuu ku dadaalo waa shay muhiim takale waxa idin sheegay shaytaanku waa ku sii daran yahay dadka wadaadada caruurtooda dadku waa laba qaybood dadna waa dad aan maxaan ku yiraahdo dayuga ku fiicnay laakiin muslimiin oo diinta ku dhaqankeedii waxaan ku fiicnay qoyskii wadaadka ahaa shaytaanku waa ogyahay illa waa ninka inkaar qabaha ku takhasusay bini aadanka sida loo lumiyo ilaa siniin bini aadan soo luminay qoyska wadaadada ah ee hooyadu xijaabanto asturanto ilaahay taqaan aabuhu aan balwadi waxba lahayn wadaadka ilaahay yaqaan caabudayo wanaagsan caruurtu malcaamadaha iyo macaayida dhiganayso hawl gaar ku bixinaya qoyska kale ee waxaysan hawl aan ku bixinay mushadaan ku bixinaya oo wuxuu ku dadaalayaa caruurtu inay noqdaan farlaka qaad oo islaamtu cayn ka noqoto odaygu cayn ka noqdo buu ku dadaalay juhdi badan buu ku bixinaya way waa reer isku yara duba dhacsan taasoo isna diidaya wax kala quban isagu waa wuxuu rabay hawl badan kaga bixi mayso qoyskii kala quban inuu ku yar shayaadiinta u dirdira iyo mooyaane kuwa waaweyn jil culusta ah qoysaskaasi fadhiisanaya waa inuu hooyadu taafanta waa abuu fahmaa oo caruurta laga dhaadhiciya oo caruurtii lala sheekaystaa lala hadlaayo tar hooyo markaa weynaataan ama aba markaa weynaataan maxaad jeceshihiin oo waxaad jeceshihiin inaad darawal noqoto inaad duuliyan noqoto askari inaad noqoto dhakhtar inaad noqotid ilmahan hiwaayadiisa ku soo baxaysa wuxuu ka guuxaya calooshiisa waa ku soo baxaysa
oo wuxuu ku hornaan waxaan jecel waxa inaan noqdo wixii haday wax xun yihiin uu ku hanminoonayana waxa tira waxaas waa laga wacay waxaas ka wacay taa aaba ku fikir abooyo ku fikir oo la sheekaysto miyo la wada barnaamijkoodii hawlaha way isku dardaarmayna waxaan ku khatimayaa hadalkayga dadka yar dhalinyarta azminadan iyo waqtiyadan dambe iyagoo diintii baranay malcaamadihii macaahidii dhiganay caasi waalidnimada ku badan oo dhalinyartii gabdhihii iyo wiilashii dhowr 10 jirada ahay macaahida dhiganay iyadoo gabadhii wacantu xijaabantu fiicanta ilaahay qof uu naxariistay mooyaan iyo wiilashii qaarkood haddana waa xuquuqdii waalidkii lama garanayo waxa laga yaabaa hooyadii si wacan loola hadal aabihiina si wacan loola hadlin waxa weeyaan waa arrin khatar cadiim ah waalidka baadinimadiisu adduunkaaga iyo aakhirada waa ku baraaraysa waalidka inaad ku dadaashaan waalidka waa idinka idin dhaqaya haddii lagu yiraahdo oo qura bal haddii lagu yiraahdo qura intii aad macadka dhiganaysa ama intii aad iskuul hoose iyo mid dhexe ama waxbarasho maalinta aad bilowday ilaa maanta intii laga bixiyay mushaharka malcaamadaha macaahida kaliya iska soo bixadu ilaa bixin karti waxa laga yaabaa marka waalidku xuquuqdiisu waa cadiim ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala masalana oo maxaan ku raaninkii intuu dhabarka hooyadii ku qaaday kacbada tawaafinay ee ibn umar ku yiri xaqeedii ma guday hal maro intay ku xambaartay xambaarka uu maradii ay dabacday oo saarmu ka dhaca xitaamada gudin buu Abdullah waalidku waa min awsati abwaab aljanna albaabada jannada albaabka u dhaxeeyo sida awgeed waalidka loo dadaa ha loo baahin noqdo warkiisa hal la maqlo hadal wacan hal lagu la hadlo hal laga xishoodo ducadiisa hal la kasbado waa lagu liibaanaya waalidka sida ka yeesho ba ilmaha guna ka yeelayaan berito gabar yar adigoo ah oo wili aan waxba dhalin reer yeelan beri markaad hooyo noqotid saad waalidka yeeli jirtay waa ilmaha guna ku yeelaya ku talagal waa waxaad sii dhiganaysaa adigu waxaad meel dhigatay ku yeelan Soomaa maanta dad gabar yar tahay oo wili reer bagaari oo ma yar tahay haddii habeen noolaato hooyaad noqon doontaa ka dhasho baa ku geli doonaa فموجد يعني waxaan idin ku darayaa tacaawul lafteeda waxa ka dhacay waxaan ogahay caasinimada waalidku inay badan tahay caasinimada waalidku dhibtay leedahay waan ogahay waan idin sheegayaa ma baarnimada waalidku dhibtay leedahay waan faa'iido leedahay waan ogahay hadaad waalidka baari u noqoto adduunkana sharaf iyo cizaad ku noolaan aakhirna meel wacan baa tigi doontaa waxa ka dhacay lascaanood ninba laga qalay caloosha odaya dhakhtarka la dhigay marka calooshii laga qalay odayga dhakhtarka la dhigay ayaa meeshii baa quruntay nabarkii wiil baa meelaha yimaado u dhalay iyo caruba u iman jirtay wiilkii wadada igu yeedha wiilkay aabihii ku soo agmari waayo iman waay maalin odayga qolkii waa looga guuray nabarkii baa qurmay ilaa wax dayactiraya malaha tarku iska waxaysan yahay waxa dhacday wiilkii baa maalin dambe u yimid oday nin qalan dhakhtarka markaa joogo wadaado joogo magaalada iminka jooga iga sheekaynay oday oo dhinta Allah naxariistay wuxuu yiri kadinkiisa soo taag waraabo miyaan lagu sheegay halka inaan jiifo oo aan buko oo nabarkii qurmay wacanka waa la sheegay maxaan ku qabtaa warbar soo galo ma soo gali maayo meel baan ku socdaay ii sheeg albaabku taagan yahay waraabaha u soo galo la hadalo meel baan ku socdaay oo iska tagdiir marada aan ku joonin kuma jiro sariirta aan ku qurmay hadaan ku qurmin buu yiri wuxuu igu yiri ninkii la joogay markaan wareys wuxuu yiri habeeno ka bacdi ayuu oday markuu dhintay habeeno ka bacdi ayaa kiira isagoo taagan tuulooyinkan magaalada ku qabsan mid kamid ah ayaa xabad soconaysa ku dhacday xabad soconayso wifta aba iska dhacday habeen tobanadii ayad markaas la keenay dhakhtarka sariirtii odaygu yaalay lafteedii baa soo dhigay wiilkii dhakhtarka uu ku jiraayo odayga waa ka hor dhigay sariirtii baa la soo dhigay xigtay wiil odaygu yaalay sariirtii baa 3 cisho aan cidi u iman markaasuu ku qurmay qolkii baan uga guuray wiil markaas mid kale uga guuray toddoba habeen baa u dhaxaysay qof walba waalidka meesha dhigto ba adiguna lagu dhigayaa ogow war waalidiintiin baahi u noqda hooyooyinkiin baahi u noqda aabayaashin baahi u noqda dadaala ستذكرون ما أقول لكم وفوضوا أمري إلى الله. شهادين قادنيسي إنك سو أرديدو أي كلمة غيهين وقيب كم ده هذا وجود نسينا دونا مانتا
ilaa 56 qof ayaa wuxuu shahaado imika la hayaa inta kalena waxaan filayaa inay iyaguna dib ka iman doonaan ragga kaligiiba ku jireen halkaana qaybta jayid jiddan ku baastay ayaa igu eeg halkana waxaan ku sii gelayaa qaybta darajada saddexaad ku baastay jayidka waxaa ugu horeeya aadam xasan faarax ibraahim موجود ولا لا؟ صاحب إبراهيم علي محمد زارة محمود محمد عثمان وضم محمود محمد أحمد إبراهيم سعيد ميمون جامع الخضلة أمال أحمد عبد عيسى أيان أحمد عبد عيسى فاروق زكريا جلال عبد الغني زهراء هذا الحسين وصمت الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا